duqa degmada Gaalkacyo oo wehelinaya gudoomiyaha gobolka Mudug mas'uuliyiin ka tirsan dawladda hoose iyo ururada bulshada ayaa maanta dhagax dhigay wadadii labaad oo jay ah taas oo laga hirgelinaya magaalada Gaalkacyo waxaana dhismaha wadadan iska kaashanaya maamulka degmada iyo bulshada magaalada Gaalkacyo duqa degmada Gaalkacyo Cabdiraxmaan Sheekh Xasan ayaa faahfaahin ka bixiyay howlaha maamulka dawladda hoose oo ku dhisayo wadooyinka iyo qorshaha furista wadooyinka xirnaa isagoo bulshada Gaalkacyo uga mahad celiyay sida ay ula shaqeeyeen dawladda hoose saaka farxad weyn doontaa dhagax dhigan naga soo qayb gashay wadadii labaad ee halkan shaqadeeda laga hayo wada hore oo isku xirta wadada Astanhobyo Ambasi iyo Cagarweyne baa laga soo shaqeeyay ma sha Allah wax fiican baa naga qabsoomay wadooyinka furitaankii waa socdaa xaafadda Hawlwadaad iyo Xadman Horseed waxaan sidoo kale qaadanayna dhowr wado muhiim ah intaan ka gaarno la dhigo mar kale runtii aad iyo aad baan kaga mahad celinayaa dhammaan dagaalkan wuxuu ku tiirsan yahay bulshada reer Gaalkacyo isku tashatay cid gaar ah ma wado waan ku faraxsanahay naga soo qayb gashaan aragtideennii ahayd in dadku wax qabsan karaan ayadii waan isku daynay alxamdulillaah rabbil caalamiin meel dhalkeedina waa haysanaa mar kale waxaan leenahay wadadan saakay dhagax dhigeeda ilaahay inuu guuleeyo ilaahay ka rajeynaa iyadoo sidaan ka qarxoona insha Allah waan xarig jari doonaa dhammaan suuqa interlock baa naga socda ganacsatada aragtiya u jeedinay ay nagu midoobeen oo runtii dadaal dheer ay ka galeen xubno oo hadlay ururada bulshada ayaa xusay in dawladda ay ku garab taagan yihiin wax ka qabashada dhismaha wadooyinka dadkii dalka u shaqeynaa meesha alla ajar badan baa ku jiro hadii la ku reeyahay masaajid waa ka qayr badan hore looga sheekay marka waxa weeye gaadiidka dadka iskale qayr badan Allah ka siiyo waxaan ka codsanay in ay wadooyinka iyo horumarka socdo qaybtooda qaataan hadaan gaadiid leeyahay dadka ugu baahida badan waa lahay oo gaadiidku macnaha wadada duusa helin macnaha dibkiis weeye marka sidaas amayrku iyo anagu ku wada tashanay iyo iskaashatay ambaliyo wadada maanta la dhagax dhigayo oo iska wax u qabso ah garabkeenan taaganahay anaga garabkeenan taagana waan ka qayb qaadanaynaa hadaan ururada haweenka shaaliyada dibadda nooga timid wakiilkana waxaan leenahay shaaliyadu dagaal baa dhacay iyo balaaya dhacday haday arki jireen horumar baa dhacay ku bixiyo deegaankiina gudoomiyaha gobolka Mudug Cabdiraxmaan Cali Diriye Isxal ayaa tilmaamay in maamulka gobolka iyo kan degmada ay iska kaashanayaan horumarinta wadooyinka oo runtii arkay muhiimadda ay leedahay horumarku oo guryo dhisay habeyn la jijiyo oo ay diyaar u yihiin ayana u madceliyaa Gaalkacyo cusub Gaalkacyadii hore wadooyinkan wuu lahaa laakiin waxa qaribay xilligii burburkii waa qaribay waxaan ku soo celinaynaa Gaalkacyada hore wadooyinkeedii inaan mid walba aanu dhagax dhigno mid walba aan ka dhisno wadadaana waa sidii waxaan rajaynaynaa mar dhow in ay laadi aragtiin ka maamulahan waxaan ku dadaalaynaa barnaamijyo badan oo jira barnaamijyadaas sidaan habeen maalintii loo soo jeedo la dhisay rajaynaa Saadaq Siciid Nuur Galmudug TV Gaalkacyo